كل وعن صاحب يال وعن كل وذاقي دونا تاريخ إيه ريكور أي قريب تهاي داوده إن مركي خارد رميستو كوبادا عagta waa ay hawlo badan tahay ciyaariyahan walba heer ayuu ka gaaraa inta uu ku jiro heerkiisa waxa uu maraa xaalado kala duwan sidoo kale dhacdooyin ayaa laga diiwaan geliyaa haddaba waxaan maanta kaaga yaabsan doonaa xidigo aadan hore u ogeyn waxaan kaaga sheegayo ah in aysan weli la kulmin in garoonka laga eriyo waxaan kala jeedaa in garsoorku go'aan ka qaato in xidigan garoonka laga saaro calaamadda casaanka loo taago haddaba waxaa jira daawadayaal tiro ciyaartoy kuwaas oo intii kubadda cagta ay ciyaarayeen aan loo taagin kaarka casaanka ama kaarka guduudan ee roosaha ha yeeshee waxaan ku hormari doonaa xidiga koowaad kani waxaan u soo hormariyey inuusanba xitaa ka duwan yahay ciyaartoyda kale lambarka koowaad xidiga ku jira waa xidigii kooxaha Barcelona, Everton, Tottenham iyo sidoo kale xulka saddexda libaax ee lagu magacaabi jiray Gary Lineker xidigan waxa uu kaga duwan yahay dhammaan ciyaartoyda kubadda cagta ciyaari jirtay kuwa haatan ciyaaray iyo xitaa kuwa badan oo la filayo inay kubadda cagta waayaha mustaqbalka ciyaaraan iska daa roose weli xitaa kaarka digniinta looma taagin la yaab kani waxa uu ciyaaray in ka badan 600 oo kulan sidoo kale waxa uu dhaliyay goolal ka badan 200 oo gool waxa uu ahaa weeraryahan soo maray kooxo badan oo reer Yurub ah sidoo kale xulka Ingiriiska lambarka labaad waxaa ku jira xidiga lagu magacaabo Willi Bellingham xidigan waxaad ku xusuusataa lambarka 21aad ee kooxda Bavarianka iyo sidoo kale xulka Germany sidoo kale waa kabtan waxa lambarka labaad uu soo dhigay waxa uu ahaa daafac difaacyadu inta badan waa kuwa dagaalka badan gala oo ayagu markaasi la kulma calaamadaha casaanka sidoo kale sanjaalaha Willi Bellingham ciyaaraha kubadda cagta waa isaga baxay sidoo kale waa laga laayahay sanduuqiisa in laga soo helo garsoore calaamadda casaanka u taagay xidiga lambarka saddexaad ku jira basadiirkii kooxda Barcelona iyo xulka La Roja Andres Iniesta ku guuleystay 2010 ee koobkii Mundialka dunida asagoo lugtiisa ku reebay Holland sidoo kalena Isbaanishka kaga farxiyay ee Lujon Andres Iniesta ayaan weli loo taagin kaarka casaanka ee roosaha xidigan ayaana lagu naynaas la yiraahdo doonta oo lagala jeedo inuu boqortooyada markaasi Isbaanishka meel fiican ka joogo lambarka afraad xidigaha qaaradooda laga waayay kaarka cas ee roosaha waa Michel Platini oo taariikhda kubadda cagta xaq maamulay sidoo kaleba xaq kooxeed asagoo soo maamulay ku guuleystaha 3 jeer ee jaayizada Ballon d'Or Michel Platini ayaa sidoo kale waxa loo diiwaan geliyay 655 kulan oo ciyaaraha kubadda cagta xul iyo kooxaba in markaa asaga uu iska ilaaliyay in loo taago kaarka cas garoonkana laga yeeriyo Karim Benzema waa xidig kale oo qaanadiisa laga waayay kaarka cas ee roosaha waana markaasi xidig akhlaaq ahaan aad u sareeya maadaama asagu iska ilaaliyay in markaa garoonka laga yeeriyo waxaana Benzema uu asagu yahay mid Real Madrid waqti fiican ku qaadanaya in ka badan 10 xil ciyaareed ayuuna xidigan markaa ciyaaraya sidoo kale Faransiiska ayuu boos wanaagsan ka joogaa oo ku jira goolayaasha ugu sareeya Faransiiska ayaa 2009 laga keenay halka Real Madrid markaa uu asagu shaqo badan u qabtay intaas ayaan jeclahay daawadayaal inaan ku soo gabagabeeyo taariikhdii iyo sidoo kale xidigihii kubadda cagta aan lagu diiwaan gelin rikoorka ah inaysan wax iyagu roosa ah loo taagin yaad ku dari lahayd daawade waan hubaa inay jiraan xidiga badan oo qaanadooda ku jirin wax roosa